maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa maanta isugu yeedhay gudiyada xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera si ay uga shaqeeyaan dawladda hoose ololaha nadaafadda ee ay ka bilaabeen magaalada Berbera weegan aynu ku jirno waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in xaafaduhu ay isbarbar taagaan maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera si ay magaaladu u noqoto mid nadiif ah isla markaasina bilicsan ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay xukuumaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Saciid maanta shirkeena wuxuu ku saabsan yahay waa ognahay waana la socotaan qayb weyn waa ka ahaydeen qorshayaashii 2019 ee dawladda hoose magaalada Berbera ay qorshaysay waxaana ku jirnaa iminka bishii 12aad oo maanta 5 ama 6 ah marka inaynu boorka iska tunno oo si diyaar garowno sanadka cusub iyo sidii aynu ula jaan qaadi lahayn in qorshayaasheena guud hore isla ogeyn waxa kale uu shirkani ku saabsan yahay in laba hawlood oo kale oo barbar socon doona oo aanu malanayo media inay hore uga aragteen oo kala ah in aynu magaaladeena ka qayb qaadano kor u qaadada nadaafadeeda iyo bilicdeeda oo gacanta lagu hayo iyo qorshe sidaan uga beernahayn 2500 geed guud ahaan magaalada Berbera gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa u soo jeediyay xaafadahan kala duwan ee ay maanta dawladda hoose ee Berbera ay kulanka la qaadanaysay inay kala shaqeeyaan dhinaca horumarka dawladda hoose ee Berbera haddaynan xoolaha ka saarin wuxuu doona ha noqday mayno suurtagelisay magaalada qurxeedii bilicdeedu marka gudiyadeeno fara badan iyo xaafadaheeno ballaaran maanta waxaan dareemaynaa in magaaladii wada dhaqaaqday qof kastaaba sidii dhaqankeena hore ahaan jiray in subax markuu aagu bariyo dib fiiqna maray guriga hortiisa in lagu wada dhaqaaqo guriyihii marka xashiishkii noo wada yaallo ay gawaarida ku rayso marka waxaan doonaynaa labada qodob aynu qaadanay iyo mashaariicdii sanadkii noo dhamaanaya magaalada gudaheeda waxaan ugu haray magaalo cad wadadeedii taa jaamalaaye markay dhamaato wada jir waxaan bilaabaynaa magaalo cad oo bilaabnaa 2 kilomitir u dambeeyay kuwii 19 qaar kamid ah xitaa imka dalabyadii waan qaar baan sii bilownay oo hordhacoodii sii socdaan waxaan idinka doonaynaa suuqin yeernay waxa weeye inaynu u guntano inaan magaaladeena magaalo qurxoon oo bilic leh oo nadiif ah aynu helno waxaynu ku heli karnaa markay ku garabna siisaan dawladda hoose ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay ay kulamo kala duwan la qaadanaysay qaar kamid ah xaafadaha iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada Berbera iyagoo u soo jeedinay bulshaduna ay gacan ka siiyaan barnaamijyada horumarineed ee ay dawladda hoose ee Berbera ay wado Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera